wuxuu soo baxay si uu sawirro uga soo qaado duurjoogta iyo kaymaha aadka u bilicda badan maadaama uu ahaa photographer caalami ah balse waxa uu qaaday sawirkii ugu naxdinta badnaa uguna caansanaa abid ee viral noqda noloshiisa. waxaan maanta kula wadaagayaa qiso dareen leh oon hubo inay ku dareen gelin doonto. waa haddii baa tahay qof naxariis badan oo leh xadda damqashada iyo daryeelka. haddaba sidii caadadaynoo ahayd intaynaan muuqaalka si weyn u dhexgelin fadlan like garee oo ka mid noqo saaxiibadeena Baaldahab TV oo riix buttonka subscribe. deegaanku waa mid ka mid ah habitadka ugu weyn ee ku dhex noolnahay waxaana nagula nooloo nagu weheliya deegaankaas dad dugaag iyo dunya intaba. haddaba dadku waxay leeyihiin qaar lowra deegaanka oo ilaaliya iyo qaar burburiya oo gebi ahaan baan ixtiraamin aagga ay ku nool yihiin iyo habitadkii deegaanka ay degan yihiin. ninkan wuxuu rabay inuu aado oo ka soo duubo muuqaalo aad u qurux badan oo bilic leh iyo soo jiidasho kaymahaadka waaweyn ee waddanka Brazil. wuxuu baxay subax hore balse wuxuu la kulmay wax uu la qiirooday oon hubo adigu inaad la tacajabi doonto aad la yaabi doonto. subax hore ayuu soo safray mid ka mid ah kaymahaadka waaweyn ee dalka Brazil oo uu rabay inuu tago booqasho diganbarasho iyo muuqaal gudbin intaba isagoo qiimeynayay oo rabay inuu ka soo duubo muuqaalo aad u qurux badan iyo sawirro dadku ay la tacajabaan oo cajab galiya dadkii ka dambeeyay iyo bulshadii uu ka yimi hadhowto. markii uu xogaa ku jiray kaymihii ayuu maqlay qaylo cod uu fahmi waayey balse wuxuu ku qiyaasay keliya waxaas inuu yahay bahal ciyaya. waa uu cararay waxaanu cararay dhankiisii si uu sugo oo u ogaado waxa meesha ku jira waxa uu yahay. waxaanu arkay bahal fadhiya meel aad uga fog oo geed hoostii ah. waa uu soo dhabacday waxaanu ugu soo dhawaaday si uu u ogaado bal waxa uu yahay waxani balse waxa uu ogaaday waxan inuu yahay bahalka loo yaqaano golida. cid aan aqoon waxa iska dhalay eeyga iyo waxa loo yaqaano dacwada. haddii aad u taqaano magac kale ama aad wax kale u aqoonsan tahay waad ila wadaagi kartaa waayo aqoontu ma aha sida aad u aragto ee waa sida lagula wadaago. waxa uu soo dhabacdo oo u soo dhawaado oo soo beerdhigaaleeyaba si aanu bahalku u dareemin. waxa uu ogaaday bahalkan inuu yahay bahalka la yidhaahdo golida oo madaxa kula jira caag uu shiri ka cuncunto. maadaama kudaafadan iyo eryadan lagu soo tuuray caag ay cunto ku jirto bahalku waxa uu rabay inuu cuno cuntada ku jirta caagga balse nasiib darro madax ayuu kala bixi kari waayey oo dib ayuu ula bixi kari waayey madaxa. waxaanu kula jiray madaxa muddo fara badan caaggan waana sababta uu noqday qolof iyo skeleton iyo bahal aad u awood daran oo aan socon karayn xataa. aad ayuu uga qiirooday aad ayuu uga xumaaday waxaanu isku dayay bahalkan inuu badbaadiyo balse waxa uu dareemay cabsi aad u weyn maadaama ay meeshu cidlo ahayd. waxa uu sidhaar muu ku cunaa bahalkani oo aad bad isku gashaa. maxaad filaysaa markaa kadib inuu sameeyey wiilkii? waxa uu gartay oo garwaaqsaday inuu bahalkani u baahan yahay caawimo iyo in la badbaadiyo oo uu ku sugan yahay halis aad u daran uuna dhiman karo haddii uu sidan ku sii jiro saacada kadib. balse waxa uu wacay oo si degdeg ugu garaacay qolyihiisa matabixinta iyo badbaadinta maadaama isagu ka cabsaday keligii uu faraha la geli kari waayey. daqiiqada kadib waxaa soo gaadhay qolyihiisa matabixinta iyo badbaadada xawayaanaadka ee deegaanka u qorshaysnaa. golidu ma ay kici karayn wax badan waxaanay ahayd mid daawanaysa wax lagu samaynayo oo mar hore ayay isdhiibtay maadaama aanay awood ay ku baxsata haynin dareemaysana inaanay awood ay ku sii socoto ay wax ku qabsato ama ay wax iskaga celisa aanay lahayn. balse dadkani ma ay ahayn dad doonaya inay dilaan keliya waxay ahayn dad badbaadinaya. waxaanay hore u galeen operationkoodii iyo badbaadintoodii iyo shaqadii ay ugu talagaleen inay kaga furaan madaxa. waxay afartaadin kaga xidheen xarka aad u dhaadheer ay ku soo kala xidheen meelo aad u fogfog si aanu dhaqaaq badan u samaynin inta ay ka furayaan madaxa. waxaa adkayd in si sahla looga furo bahalkan madaxa kaga xidhan ee balaastiga ee caagga ah maadaama uu hayay naqasku oo temperaturekiisu aad u kacsanaa. waxaan madaxa kaga xidhanna uu ahaa caag weliba muddo badan waxaanay u baqanayeen inuu dhinto. intii tiimkii riskiga ee badbaadinayay bahalka ay wadeen shaqadooda waxaa soo weeraray koox dhan oo golli ah kuwaasoo rabay inay badbaadiyaan bahalka una arkay in la dilayo. balse afarta gaftin markii ay iska soo taageen iyo hareeraha oo ay ku soo xoomeen oo iyagoo doonayay inay cunaan dadka waxay dareemeen bahalkan in ay doonayeen inay badbaadiyaan dadku aysan dilayn. muddo yar kadibna waa ay ka dareereen waxaanay ka daaweynayeen oo korka ka eeganayeen
meelaan aad uga fogeyn oo waxay tageen dhir aad uga durugsan balse ay kala socon karaan waxa meesha ka dhacaya. dadkii waxay sii wadeen sabata bixintoodii, ugu dambeynna waxay ku guulaysteen inay ka furaan bahalkii madaxa uga xidhnaa, sidaana ay ku badbaadiyaan noloshiisa xawayaanka loo yaqaano gollida. sidaana waxay ku badbaadiyeen bahalkii iyo noloshiisii intaba. haadda iyo dugaagoo bahalkan dhimashadiisa ayay sugayeen, waxaanay ka eeganayeen guudka in badan, balse nasiib wanaag waa la badbaadiyey, waxaanay ku guuldarraysteen inay cunaan oo ay helaan meydkiisa bahalka loo yaqaano gollida. haddaba daawade, morale waxaan ka faa'iidnay qisadan waa naxariista iyo dabacsanadu inay tahay waxa ugu weyne qof bixiyo iyo waxa ugu weyne uu qofku haysto. haddii aad tahay qof naxariis leh oo leh xadda dareenka iyo daryeelka, waxaad qabanaysaa waxyaalo waaweyn adigoo aan ka eegaynin waxyaalaha qaar. haddaba daawade, sidee ayaad u aragtaa dulucda qisada? waxa uu la kulmay ninkan, mase badbaadin lahayd bahal aad ogtahay inuu dadka cuno oo ku jira xaalad noocan oo kale ah? igu dhaa fakarkaaga iyo qaabka ay kuula muuqato qaybta hoose ee comment section-ka. fadlan daawada, weli haddii aanad laygarin muuqaalka laygaree, kuna soo biir channelkeena Baaldahab TV oo noqo saaxiibadeenna aadka u qiimaha badan si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono kanaalka.